waxaa jiray hadda ka hor nin la oran jiray jaamac wuxuu guursaday say ayuu guursaday say labaadna waa ku guursaday sayga koowaad uu guursaday waxa la oran jiray rawda ayaa la oran jiray sayga labaad uu guursadayna waxa la oran jiray ruwayda ayaa la oran jiray labaduba ilaahay fadligiisa laba gabar bay u dhashay mid walba gabar bay u dhashay wixii la iska noolaadaba qadarta ilaahay baa timide gabadhii la oran jiray rawda ayaa geerida u timid ruwayda waxay dhashay amran gabar la oran jiray rawdana waxay dhashay caban gabar la oran jiray waxay duruufta kaliftay gabadhii rawda dhashay oo caban dhashay haday dhimatay xogaa yar gabar marka soo hana qaaday bay ahayd dantu iyo ayaamuhu waxay biday in loo soo guuriyo eedadeedii eedana wala yaqaana Soomaa ma sha Allah labada gabdhood amran iyo cabanba waa isku wadada hadii ay u soo wada wareegeen eedadeedii oo rawda ahayd ay u soo wareegtay waxaan leeyahay ruwayda ay u soo wareegtay waxa dhacday hoolihii guriga sida baadiyaha la yaqaano way ka mashaqo badan tahay halka magaalada aan anagu ka joogno waxa la sameeyaa xoolihii baa la soo xareynaya waxa markii la soo xareeyo kadib waxa loo baahan yahay nirgooyinka in lagu sii daayo laga soo xareeyo bahalkii xoolihii la maalo habeenkii ma subaxdii markii la waago uu bariyo xoolihii la foofiyo sabadoodii laga shaqeeyo dhiilashoodii la cugo waa hool aad u culays badan gabadheedii ruwayda ahayd ruwayda xaaskii ruwayda ahayd hooyadii meesha booskeedii joogtay gabadheedii amran waxay tiraahdaa mar walba ii seexo hooyoy waxa hoosha dhagaha looga jafaa gabadhii la oran jiray caban la oran jiray baa 24 saac guriga looga manasiyo inay fariisato waa loo diiday leeylan wanahaaran shaqo ay ku jirtaa maray xoolaha soo xareyso maray nirgooyinka ku sii deyso mar ay dhiilaha cogto 24 saac hooshaasi waxay u noqotay continuous ilaa ay noqotay mid ay la falgashay way la qabsatay daily bay nolosheeday ka mid noqotay waa la wada weynaaday muddo badan markii la joogay kadib gabar walba waa la soo doontay waxaan ka wadaa warkaygu waxa lagu leeyahay inaad gudato hool dheerina aad ku dartaa maxay ku jeclaysiinaysaa xadiisteedii iyo nusuusteedii waan soo sheegay midda ilaahay makhluuqana inay ku jeclaysiinaysaa qadiyadaasan u sii socda labadii gabdhoodba waa la guursaday waana la galbiyay ninkoodii baa loo wada geeyay meesha loo galbiyo waa iska baadiyo waa iska aqal hoori xoolo la soo xareynayo xoolo la foofinayo nirgooyin lagu sii deynayo ma hool aan had 24 saac ahayn gabadhii ninkii guursaday caban waaba hoosheedii meesheedii ka sii karaar qaadatay iyadoon loo dirinba war waxaan sameey cabeen aan la oran 24 saac hoosheedii qabsata markaasa waxa ka dhacday wiilkii inuu yiri jannatu dunya matani waa gabdhihii waxbayba dheer tahay ma mid ilaahay ku soo dirayba ninkii guursaday amran bish markuu ka baxay kadib wax xoolo sidii loo sii daayay ma taqaan nirgooyinka hadii halka ku sii deysay wax la soo xareynayo xoolihii male si kasta hadii loogu sheegay 24 saac gabar baratay jiif inaysan hool qaban macaalkeedii noqday waa la soo galbiyay ninkan wuxuu yiri hadayba tan da kugu dhasho waaba khasaare idaafi buur balaayaha la tagtay cayaasidaani ha imoodo gabadhii baa la soo waday waxa loo keenay hooyadeedii ruwayda ahayd tolkeedii iyo qaraabadeedii baa la yaabay war ruwaydisay wax ka yihiin meeshii la rabay gabadhaadi inaad tababarto oo hoolo badan aad u dirsato oo maanta lagu intifaaco gabadhii shisheeyaha ahayd baad wax bartay oo caban ahayd say wax u jiraan hadal hal hays oo taariikhda galay aan ka raba inaad iga xifdiso ayay ku hadashay waxay tiri war cadaadi baan lahaaye ma wax bar ma aan lahaabay tiri soo ma jeedid idan maxaan ka wadaa hadaad sida waajibka lagu talagalay aad u gudato khalqiga ilaahayna waa ku jeclaanayaan برنا إلهي أكتيسنا محمود باتكون نقونيسا إذن وحا إيقا دردارنا واجبات كل قول ليهي إن آد قدته ولأجل ذلك هي صومالي وحي ترى هذا أولاد آد شيء ما كلا جعلي لكن أيقا إسكا جعلي سي سوساس معنا إخواننا خيارك قولي غافر لما تنسى حدي هوش الله قبط آبا مركو يماذا كبها لغا سيو لغاها الله ريح ريحو أديقو اللغو ديرين فلانا يهب لا يستاقي بيها إيشب هداد أمر كيش وابارين نمو لكن waxa ka si baarinimo badan inta aan lagu sheegin inaad garato maxaa la yiraahdaa al-hurr takfihi al-maqala wal-'abd yuqra' bil 'asa
qofka gobta ah ishuu wax ku fahmaa saadaalinta iyo signaliska jira ayuu wax ku fahmaa